madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimada dowladda Hirshabelle. Wafdiga madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle waxaa garoonka diyaaradaha ee Maxamed Dheere ee magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu horkacay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka, wasiiro, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada dowladda Hirshabelle ee magaalada Jowhar, waxaana halkaas uu kulan kula qaatay madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen. Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka wada hadlay howlaha maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale in la dardargeliyo u gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. kulanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle ayaana ku soo dhamaaday in la dardargeliyo howlaha gurmadka abaaraha oo baaxad leh taas oo saameysay deegaanada Hirshabelle. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ee maanta soo gaaray magaalada Jowhar ayaa hore uga sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkaas oo madaxweyne ku-xigeenka uu joogay howlo shaqo isaga oo kulamo la soo qaatay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee dalka. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio, Jowhar.